inay galwadeen ka noqonayso wada xaajood xoogan oo lagu joojiyo xiisada ka dhalatay dalalka Carabta ee xiriirka lagu jiray Qatar. Wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Marfis Kabizoglu ayaa sheegay inay riixayaan sidii loo soo afjari lahaa xiisada u dhaxaysa dalalka Carabta ee gaartay meel aad u xun. waxa uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda Turkiga in Qatar ay diyaar u tahay in xiriirka diblomaasiyadeed ee dalalkii Carabta ay la lahayd dib loo soo celiyo ayadoo maraysa mowqif yahanaan siyaasadeed. wadahadallada ayaa waxay ka dhacayaan dalka Kuwait waxa uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda inuu gacan ka geysan doono Sheikh Sabah Khalid al-Sabah Kuwait. xasarada ka dhalatay in xiriirka ay u jiraan Imaaraadka Carabta Sacuudiga iyo Masar Doha ayaa waxay saameyn ku yeelatay dalal fara badan oo Islaam ah kuwaas oo ay qayb ka yihiin dalalka Yemen, Iraq, Soomaaliya, Liibiya, Bahrain, Kuwait, Iran iyo kuwa kale. haddii Turkiga ay ku guuleysato ayadoo Kuwait kaashaysa inay mar kale dib u soo celiso xiriirkii Doha iyo dalalka kale ee Carabta ah waxay noqon doontaa guul lama filaan ah oo Turkigu u